Czechoslovakia waxa uu ahaa qaran u taagnaa midnimo iyo adkaysi kaas oo ku yaalay bartamaha qaaradda Yurub laga soo bilaabo dhalashadiisii ilaa iyo kala tagiisii. Sheekada Czechoslovakia waa mid ka mid ah taariikhii tagay qarniyadii la soo dhaafay. Czechoslovakia waxaa la aasaasay 1918 kadib burburkii boqortooyada Austria-Hungary waxayna soo martay isbeddelo siyaasadeed oo muhiim ah iyo caqabado ilaa laga soo gaaray 1993 markaasoo si nabad ah ay u noqdeen laba dawladood oo madax bannaan Czech iyo Slovakia. Sooyaalkii hore xilligii Roomaanka dhulkan waxaa deganaa qabiilooyin ka mid ah qabiilooyinka Jarmalka sida Marcomanni iyo Kuwadi waxayna xiriir ganacsi la lahaayeen boqortooyadii Roomaanka oo iyadu markaas si dadban u maamuli jirtay marmarka qaarkoodna waxaa dhexmari jiray dagaallo kadib burburkii boqortooyadii Roomaanka qabiilooyin kale oo Jarmal ah sida Lombards iyo Suebi ayaa dhulkan soo maray waxa ayna si ku meel gaar ah ula degeen qabiilooyinkii hore ee Jarmalka ahaa. qarnigii lixaad qabiilooyin Islaaf ah ayaa bilaabay inay u soo hayaamaan dhulkan. Islaafku waxa ay aasaaseen qabiilooyin beeraley ah oo markii dambe noqday aas-aaska dadka hadda Czech iyo Slovakia. qarnigii toddobaad ganacsade Faransiis ah oo la yiraahdo Samo ayaa mideeyay qabiilooyinkii Islaafka ah iyagoo sameeyay boqortooyadii Samo oo ka mid ahayd boqortooyooyinkii Islaafka ee ugu horeeyay. qarnigii sagaalaad gobolku waxa uu noqday qayb ka mid ah boqortooyadii weyneed ee Moravia. Moravia waxa ay ahayd xadaarad weyn oo lahaayeen dadka Islaafka taasoo ka hanqaaday dhulkaas. kadib markii ay hoos u dhacday boqortooyadii weyneed ee Moravia dhulkaas waxaa ka curtay boqortooyada Bohemia iyadoo waxa ay ahayd xadaarad kale oo weyn oo xilligaas jirtay. 1867 waxaa la wareegtay boqortooyada Austria-Hungary gobolada Bohemia iyo Moravia oo maanta loo yaqaan dhulalka Czech waxay ka mid ahaayeen meelaha ugu warshadaha badan uguna horumarsan boqortooyada Austria-Hungary iyadoo si weyn uga qayb qaadatay wax soo saarka warshadaha ee guud ahaan boqortooyada. gobolkan waxa uu lahaa dhaqan dheer iyo ilbaxnimooyin ku saabsan wax soo saarka oo ay ku jiraan wax soo saarka dharka, mashiinada iyo muraayadaha. waxa uu ahaa xarun weyn oo dhaqameed iyo mid dhaqaale. Slovakia marka la barbar dhigo Czech waxa ay ahayd mid aan u horumarsanayn dhinaca warshadaha. dadka Slovaaga waxa ay u badnaayeen beeraley iyadoo dhaqaalaha ugu badan ay ku tirsanaayeen uu ahaa beeraha. dawladdii koowaad ee Czechoslovakia waxaa la aasaasay 1918 kadib burburkii boqortooyada Austria-Hungary ee dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka. dalka waxaa aasaasay Thomas Garrick Masaryk iyo Edvard Beneš kuwaas oo door muhiim ah ku lahaa mideynta dalka. dhulka xilligaas waxa uu ka koobnaa Bohemia, Moravia iyo Silesia oo la isku yiraahdo dhulka Czech iyo Slovakia. dadka deegaanka waxa ay ahaayeen kuwo kala duwan oo ay ka mid yihiin Czechs, Slovaks, Jarmal iyo Hungarian. kala duwanaanshahan mararka qaarkood waxa ay keeni jirtay khilaafyo u dhaxeeya gaar ahaan dadka Czech iyo Jarmalka. qowmiyadda Jarmalka oo ahayd qayb muhiim ah oo ka mid ah dadka deegaanka Sudetenland ku nool badanaa waxa ay dareemi jireen in la dayacay taasoo keentay khilaafyo oo markii dambena uu ka faa'iidaystay Naazigii Jarmalka. sanadkii 1938 heshiiskii Munich oo ay saxiixeen Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa u ogolaaday Jarmalka in uu qabsado Sudetenland oo ahayd aag ay ku badan yihiin dadka ku hadla Jarmalka. heshiiskaas waxaa loo arkay isku day lagu doonayo in looga fogaado dagaal ka dhaca Yurub iyada oo lagu qancinayo Adolf Hitler. waqtigaas hogaamiyaal badan oo Yurub ah waxa ay aaminsanaayeen in buuxinta qaar ka mid ah talabaadka Hitler ay ka hor istaagi karto khilaaf weyn oo soo socda. bishii Maarso 1939 Jarmalkii Naaziga ayaa mar kale qabsaday intii ka soo hartay dhulalka Czech. Slovakia waxa uu ku qasbay in ay ka tanaasusho Czechoslovakia oo ay dal gooni ah noqoto ama in la hoosgeeyo Hungary. sababtoo ah qorshaha Naaziga ee ku wajahan qabashada dhulalka Czech iyo sii deynta Slovakia waxa ay ku qotantay isku darka arrimo juqraafi, mid istiraatiijiyadeed iyo mid qowmiyadeed. Czechoslovakia waxa ay ahayd meel istiraatiiji ah sababtoo ah waxay ku taalay bartamaha Yurub waxayna xuduud la lahayd Jarmalka, Austria, Hungary iyo Poland. gacan ku dhigidda Czechoslovakia waxa ay la mid tahay gacan ku haynta bartamaha Yurub taasoo u sahashay ballaarin dheeraad ah iyo ilaalin ka dhan ah weerar kaga yimaada bariga.
dhulka jeega gaar ahaan Bohemia iyo Moravia waxa ay lahaayeen warshado ay ku jiraan warshadaha farsamada dhammaan agabka ciidanka warshadaha Skoda iyo Pilsen waxa ay ka mid ahaayeen warshadaha hubka ee ugu waaweyn qaaradda Yurub xilligaas taasoo ka dhigaysa Czechoslovakia meel bartilmaameed u ah Jarmalka si ay kor ugu qaadaan awoodooda military dhulka buuraha leh ee Sudetenland oo ah gobol ka tirsan Czechoslovakia oo xuduud la leh Jarmalka iyo Austria waxa ay lahaayeen xuduud difaac oo dabiici ah taasoo ka dhigaysa meel istiraatiiji ah sidoo kale waxaa deganaa dad badan oo ku hadla Jarmalka tani Hitler waxa uu isticmaalay marmarsiyo uu ku dalbanayo in gobolka lagu daro Jarmalka Sudetenland oo uu hogaaminayay xilligaas Konrad Herlin ayaa Naaziga u adeegsaday in uu carqaladeen kala hor yimaado Czechoslovakia iyagoo dalbanaya ismaamul gooni ah taasoo gacan ka geysatay heshiiskii Munich ee 1938 markii Naaziga ay ku darsadeen dhulalka jeega oo ay sii daayeen Slovakia sida dawlad madax bannaan oo magacaaban waxay si wax ku ool ah u weeqeen midnimadii Czechoslovakia istiraatiijiyadan qaybi oo xukun waxa ay ka hortagtay in jeega iyo Slovakia ay si wada jir ah ula dagaalamaan Jarmalka kadib dagaalkii labaad ee adduunka markii la jabiyay Naaziga Jarmalka Czechoslovakia dib ayaa loo aasaasay iyadoo oo ah dawlad madax bannaan waxa mar kale dib u midoobay Jeeg iyo Slovakia bishii Febraayo 1948 xisbigii shuuciga ee Czechoslovakia oo helay taageero midowgii Sofiyeeti ayaa abaabulay afgambi dhacdadan oo loo yaqaan afgambigii Febraayo waxa ay horseeday nidaam cusub oo shuuci ah Janaayo 5 1968 Alexander Debjik waxa loo doortay xoghayaha guud ee xisbiga shuuciga ee Czechoslovakia Debjik waxa uu ka tirsanaa madaxdii xisbiga shuuciga ee Czechoslovakia laakiin waxa uu qabay fikir ah in la qaato nidaam ka duwan kan Sofiyeetka waxa uuna bilaabay olole lagu hirgelinayo nidaam ka duwan shuuciga oo ay ka mid yihiin xorriyadda saxaafadda xorriyadda hadalka iyo xorriyadda ururada kadib kacdoonkii Prague oo ahaa kacdoon xilli kooban socday oo lagu raadinayo xorriyad siyaasadeed iyo mid bulsho kaas oo dhacay intii u dhaxaysay Janaayo ilaa Agoosto 1968 isbedeladaas waxa ka mid ahaa yareynta xakameynta xisbiga shuuciga iyo xoojinta xuquuqda madaniga iyo xorriyadka dadka Czechoslovakia waxa ay aad u taageereen habeyntii Debjik iyagoo rajaynayay in ay helaan xorriyado dheeraad ah mid siyaasadeed iyo mid bulsho dhammaan qaybaha bulshada oo ay ku jiraan ardayda shaqaalaha aqoon-yahanada ayaa aad ugu farxay isbedelkaas cusub midowgii Sofiyeeti iyo xulafadii Warsaw Pact waxa ay ka cabsadeen in isbedelada ka socda Czechoslovakia ay dhiirigelin u noqdaan dhaqdhaqaaqyo la mid ah dalalka kale ee bariga Yurub shirar badan oo dhexmaray hogaamiyayaasha bariga Yurub ayaa lagu muujiyay walaac laga qabo waxa ay u arkeen in ay khatar ku tahay xukunka shuuciga labaatankii Agoosto 1968 habeennimadii ciidamo ka socda midowgii Sofiyeeti Poland Hungary Bulgaria iyo Jarmalka bari ayaa galay Czechoslovakia si ay u joojiyaan isbedelka shuuciyadda On the 20th of August 1968 2,000 tanks and 500,000 troops rolled in to Czechoslovakia inkasta oo dadka Czechoslovakia aysan si xoogan uga hortagin duulaanka haddana waxaa jiray mudaharaadyo nabadeed iyo falcelinno shacab oo carar leh duulaankii kadib hogaamiye cusub oo taageersan Sofiyeetka ayaa loo magacaabay si loo xakameeyo dalka inkasta oo kacdoonkii Prague la joojiyay haddana waxay dhiirigelisay dhaqdhaqaaqyo dimuqraadiyadeed oo mustaqbalka ka dhaca Czechoslovakia iyo bariga Yurub kacdoon nabadeed oo loo yaqaan kacdoonkii Velvet ayaa soo afjaray xukunkii shuuciga dibadbaxyo iyo mudaharaadyo ballaaran oo dhacay ayaa sababay iscasilaadda dawladdii shuuciga Havel oo ah qof ka soo horjeeda shuuciyadda iyo qoracaan ah ayaa loo doortay madaxweyne Czechoslovakia waxa ay bilowday isbedel dimuqraadiyadeed iyo mid ku saleysan dhaqaalaha suuqa xorta ah 1992 ilaa iyo 1993 kadib doorashooyin dimuqraadi ah khilaafaadka u dhaxeeya gobolada Jeeg iyo Slovakia ayaa horseeday kala dirid nabadeed bishii Janaayo 1993 Czechoslovakia waxa ay u kala go'day laba wadan oo madax bannaan Jamhuuriyadda Jeeg iyo Slovakia
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa mowduucii aan kaga hadlayay Czechoslovakia. fadlan like noo saar sidoo kalena subscribe oo nala wadaag asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan intaan muuqaalka mid la mid kulmi doono nabadgelyo.